waan islaamo walaalayaal meel walba joogtiin kolleyto dagaalku waa bilaabmay aniga hadda sidan hadda rajo maba lahaynba balse waxaan ogaaday dagaalka inuu socdo run ahaantiina aad iyo aad ayaan ugu farxay baarlamaanka Soomaaliya inay anaka nalaga hadlo nalagama hadlin qaas ahaan anaka nalagama hadlin haddii aan nahay dadka qanisiinta mise dadka faraxsan laakiinse adiga hadalkaas sida loo soo geliyo sida qolo loo soo geliyo ala kulli xaal waan imaan waana laga hadlay marka taas aad baan ugu faraxsanahay dukaan baan joogaa albaabkan fiirinaya inay customer ay soo galaan camal taas horta aad baan ugu farxay midda labaad kolleyto anaka maanta inina la aqbalaayo uma maleynayo balse dagaalku inay socoto ayaa fiican berito haddiina la aqbalinna 10 sano had wixii ka dambe 20 sano had wixii ka dambe ilmaha anaka hadda inaga soo ilmaha dhalan doon sidii ay xaq u helaan xuquuqdooda u helaan sidaad ogtiin horta anaka waxaan ku noolnahay qurbada dadka ku noolna haddii gaar ahaan ay yihiin dadka faraxsan dhibaatadooda waa xadda dadka waa dad hari haween la caayo haddii ay magacaada wadada sida u socdaan ayagoo matalaya nafsadooda inay yihiin waxay yihiin la dhagaxyeenayo dadkooda deeriyeen taas waxaa inoogu soo dheer depression oo adiga qofka bini'aadanka haddii uu dadkaada ku deeriyeen oo dadkii ehelkii aad taqaantay iyo Soomaali guudka aad taqaan hari habeensaa lagu caaynayo qofkii waxay noqonaysaa marka inuu daroogo uu aqli ka dhigto iyo khamri sidaas aad arkaysaa dadkeena badana haddii LGBTIQ ay yihiin inay cabayaan waxaa la iskaga qaadaya magacaada fikradda mise depressionka aad iyo aad inoo hay ayaa la iskaga qaadaya hal qof waxaa jirta oo magacaada adkaysan kuwaasna waxay sameynayaan dumar ayay guursanayaan si ay u qanciyaan reerkooda mise Soomaalida hadlaysa ala kulli xaal marka waxaan rabaa clipkan aad umaad maqlaysin clipkan ila dhagaysatiin baarlamaanka laga soo daayay anigana waxay fikradan ka qabo insha Allah aan la wadaagaya اقرا النقطة يا حير وطن كان هو وطن إسلامي شروع الله سمعنا يوحى الله طلقلي شعب الصوماليين لو دقوا وطن كان دين أيوليه لكن نسيب ولاك ماذا لدي شيء يا horta qof diidan ma laha wadanka inay wadan islaam tahay balse waxaa jirta Soomaaliya inay democratic ay ahayd oo wixii 90 ka hore 91 ka hore inay democratic country ay ahayd oo xuquuqda lagu xukumayo wadanka ay ahayd wadan xuquuq dunida ka taale intii adiga al-shabaab imaadeen uma la bilaabay in shariicada islaamka in lagu dhaqo wadanka laakiin waxa anaka wax dhaqan ahaan inoo ahayd maysan ahayn marka qof kula doodayo ma laha wadanka waa wadan islaam boqolkiiba haddii maanta sidii la ogaaday asalkeeda boqolkiiba boqol la leeyahay laakiin hadda boqolkiiba 95 iskaba dhahba islaam yihiin shanta adiga Soomaalida inteed ku tuuraysaa shanta Soomaalida oo boqolkiiba shanta soo harta inteed ku tuuraysaa miyaysan Soomaali ahayn wadankii miyaysan xaq ku lahayn dastuurkan dadka soo sameeyay khubradda dastuurkan soo qortay hal qodob oo wax walba ka badbaadinaya baarlamaanka ay ku soo dareen waxaan waafaqsanayn yani شريعة الإسلام كاي هي مقاصد ذا
sharci ma noqon karaan lamana keeni karo baarlamaanka marka kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxayaa zinada wuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tagi karaan u fasaxayaa wuxuu fasaxayaa because futadu ka hadlaa bismillaahi rahmaani rahiim baqal futada laga geliyo ka hadlaya wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda waxay soo gudbisay inaan laga aqrin meeshaan laakiin duruuftaa kallifaysa inaan aqrino aan caddayno waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waay sharciga loo keeni waayo waxaan idiin sheegayaa sharcigaasi guddiga hawshaan u xil saaran in badanaan ka wada hadalnay teedi kale hal qodobaan idin caddaynaya sharcigan xukuumadda markay ansixisay xukuumaddii hadda dhacday culammada soomaaliyeed oo dhanaa ka hadashay waxay yidhaahdeen qaarkood dadka sharcigaan soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen inayn islaam ahayn sidaa daraaddeed waxaa loo saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddi asaga madaxa ugu yahay oo culamaadudiinka soomaaliyeed dadka la yaqaano ay ka mid ahaayeen waa laga soo shaqeeyey sharcigii wasiiraddaa loo yeeray waxaa la yidhi waxaan rabnaa sharcigaan in la saxo wasiiraddu waxay tiri wixii aan soo qortay keliya ayaa xukuumadda laga ansixinaya taas way ku quman tahay wasiiradda inay dhahdo waxa aniga soo qorto in laga ansixiyo magacaadii sharciga markuu ku leeyahay horta dastuurka yaa qore waay haddii aan Soomaali nahayna dastuurka waxaan u adeegsanaa sidoo hadda sheegay wadaada mise sheekhatiin ayay adeegsadaan sheekhu dhib ma lah balse hadduu sheekhu haba taagnaado hadda sidii hadda inta South Africa aan khaas ahaan aan kaga soo qaatay markii dastuurka la qoraayay wadaadada kristiyaanka waa magaceedu waa lala wadaagay inay dastuurka wax ka qoraan balse waxaa meesha godob joog ka ahaa humanitarian lawyers dad xuquuqda bini'aadamka wax ka yaqaan ayaa meesha wada joogeen markaa sharcigu markaas waxaa loo soo wada dejiyey inuu nin walba oo markaa waddanka ku nool yahay uu magaceedu ku noolaan karo uu sharciga uu xaq ugu leeyahay camal marka haddii wadaadada Soomaaliya marka ayka ay sharciga ay dhahaan waxa anaka aan aaminsanahay oo anaka maskaxdeenu ku qufulan tahay le uma meeshan laga maamulayo masaba lagu janqaadayo taas ayadana waa sheeko gooniya waa hadal gooniya wuu ka soo gudbay waxaan fariisinay guddiga joogtada sharciga markuu noo soo gudbay waxaan fariisinay guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka waxaan tusnay waxaan ku dhahnay qodob dastuuriya ayaa wuxuu dhigayaa in waxaan waafaqsaneen yani shareecada islaamka iyo maqaasideeda aan sharci noqon karin xukuumaddiina waxaanay soo gudbisay maxaan ka samaynaa guddiga joogtada waxay soo jeediyeen inaan xukuumadda dib loogu celin ee guddoonka baarlamaanka uu qaato in sharcigan la hagaajiyo guddoonka baarlamaanka mas-uuliyaddaas uu qaatay waxaan wacnay culimmadii Soomaaliyeed oo aan islahayn shareecada islaamka si fiican ay u yaqaanaan oo weliba ku xeel dheer keliya ma aha shareecada islaamka qawaaniinta kalena bartay culummo la yaqaano oo magaalada Muqdisho meelo fara badan laga yaqaano culimmadii dhowr maalmood lala fariistay waxaan u yeernay sharci yaqaanadii golaha shacabka u yeernay waa la wada fariistay culummadii iyo sharci yaqaanadu way fariisteen waa la saxay dokumenti ay soo diyaariyeen dokumentiga ay soo diyaariyeen ra-iisul wasaaraha waxaan ku niri dokumentigan waxaa soo diyaariyey dad la yaqaano oo sharci yaqaano ah iyo culimmadii Soomaaliyeed wixii khatarta ah ku jirayna waa laga saaray waxaan rabnaa wasiiradda faraha laga saaro ee ha ku soo darto xukuumadda mar labaad ka soo celiso haddana ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi awood uma lihin wasiiradda inay qaadato ay wax ku soo darto
yeelaysaan yeela waa la soo noqonnay kalfadhiga markuu furmaya haddana waxaan u yeernay guddigii joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka guddigii haddana su-aalaan weydiinay waxaan ku nidhi dokumentigii culamadii iyo sharci yaqaanadii golaha shacabka ay soo diyaariyeen xukuumadda markaan u gudbinay xukuumaddii waxay tiri idinku aad saad ka yeelaysaan ka yeela maxaa tala guddiga joogtada waxay soo jeediyeen waxay yidhaahdeen sharciga sida xeroosaadku uu qorayo ama dastuurku uu qorayo maadaama aan awood u leenahay golaha shacabka ee baarlamaanka awood uu leeyahay in uu ka bilowdo sharciga xukuumadda ay soo gudbisay hal la joojiyo waxaa la yidhaha ka bilowdo sharciga golaha shacabka ka bilowdo sharci ayay soo diyaariyeen guddigii loo diray hawshaasi ayagoo haddana kaashanaya sharci yaqaanadii iyo khibraddii hore ee dokumentigii lasoo diyaariyay aan rabnaa marka xildhibaanada mid inay ogaadaan waddankan waa waddan islaam ah lama diidana taa ayada shuruucda loo sameeyana dowladdan islaamka ayaa lagu dhaqayaa shuruucdu waa inay qof walbo aqbasho waa qof walbo meesha ku nool luuqadda af soomaaliga dhiigga soomaalida uu leeyahay shuruucdu waa inay maamusho ya laguma dhaqaayo conventions way jiraan oo annaga aan la galnay aan ka mid nahay aan wada saxayna ama treatisaa jira laakiin ogaada conventionada iyo treatiska waxaa ka weyn diintaa ka weyn haddaad akrisaanna waa arki kartaan maxaa la yidhahdaa charterka akhriya oo United Nationska waxaan diintaadi ogoleen qof kasta facasaxaysid mala qofka markuu ku dhaho marka qodobkan qofka markuu ku dhaho orado akhrista challengegaas waa inaad qaadatiin ood akhrisiin run ahaantii markuu dhahay United Charter ayaan magaceeda ay ku jirtaa inaa haddii marka adiga qof wixii aad diintaada ogoleen inaadan saxiixin shalaytoo dhan ayaan magaceeda Google iyo research iyo wax walbo meel walba wax laga qoro aan raadinayo United Charter waan akhriyay ala kulli xaal dad badan aan wacay oo marka oo wax ka yaqaano sharciyada ayaan wareysaday marka ninkan wuxuu ka hadlayo waxay tahay hadda qaayahan South Africa kaaga soo qaato South Africa nin pastor waxaa la yidhaahdaa wadaadada churchka mise khaniisiinta meesha masiixiga wadaadka ugu weyn hadduu marka ayadoo waddanka ay ku ogoshahay waddankan hadda aan joogno ayadoo ku ogoshahay ay ina ogoshahay inay laba nin isguursan karaan laba dumarna isguursan karaan haddana wadaadka masiixiga iyo wadaadka muslimka ah wuxuu xaq u leeyahay inuusan ku aqbalin uusan ku guurinin haddii ay rabto inaad guursato inuusan ku guurinin ayuu xaq u leeyahay oo marnaba ma amari kartid marka charterka taas ayay ka hadlaysaa qof magaceeda xoog lagu leeyahay mala nin wadaad Soomaali ani amar kuma lihi amar igu aqbal aniga kuma lihi balse waxaan anaka aan leenahay waxay tahay bini aadan ayaan dhiig ayaan leenahay xaq ayaan leenahay kole waxaad adiga aaminsan tahay aaminsanaana dad baa waxay aaminsan yihiin in anaka nal xaq lagu siiyo dad baa waxay aaminsan yihiin in sidii hadda clipka hore oo uga hadlay inay jin gabar nagu jirto dad baa waxay aaminsan yihiin sidii hadda familygayga markaan la hadli jiray inay sixir inagu jiraan oon sixiranahay ala kulli xaal wixii adiga aad aaminsan tahayba aamisnaada laakiin soo dareenku anaka waan leenahay dad bini aadan ayaan nahay waan danqanaa sida adiga aad u danqanaysa ayaan u danqanaa waana dareen haddii aad bini aadamnimo kugu jirto oo inna naxariis ay kugu jirto
marka anaka waxaan leenahay hana la aqbalo kulleeto weligaaga adiga ha aqbalin nafsad ahaantaada ha aqbalin laakiin dowlad ahaan hana la aqbalo oo haddii marka adiga ana hadda maanta aan Soomaaliya tegi karo Muqdisho aan tegi karo ha ahaato waddan aniga kulleeto inkasta ay qof walba weli taasu aysan helin oon ka rajaynayn in Soomaaliya oo dhan nabad hesho haddana haddii aan tago in aniga aan banaanka amaan la siinayo oon la taabanaynin oo waxaan aniga ahay amaan la igu siinayo taas umaan anaka aan ka hadlaynaa oonan umaanu codsanayna marka alaa kulli xaal walaalo ruuxantii aad iyo aad aan u faraxsanahay marba horto hadalkan anigu waxaan u maleynayay anigu minaan iska hadlaayo oon riyoonayo balse marbaba haddii hadalkan ay tagtay baarlamaanka rajo aad iyo aad ayaan u weyn ayaan leenahay kolleeto dadka faraxsan haddaad tihiinna fadlan codkiina hala maqlo dhaqdhaqaaqiina ha bato qaylidiina ha bato aad iyo aadaan ugu mahadcelinaya wasiiradda ayada naga hadashay inaga kolleeto sidaan aniga aan u malaynayo maysan nin qanisiinta hala aqbalo laakiinse siduu ninkii uu sheegay si kalaa loo soo geliyaan u malaynaya calaa kulli xaal si ay ahaataba haddii markaa waddankana laga aqbalaayo ana wallaahi bilaa been kuma sheegay berintooda muqdisho ayaan joogaa yaa oon guri ka dhisanaya oo maalkayga gelinaya oo hantidayda gelinaya oo magacaydii dhaqaalaheeda oo dhan aan gelinaya yaa waa waddankayga oo waddan aan ka jeclaa mala har iyo habeen halkan aan joogo har iyo habeen heesaha soomaalidaan dhegaystaa riwaayadooyinka soomaalidaan dhegaystaa qof walbo luuqad af Soomaali ku hadlaya ayaan dhegaystaa waxaasoo dhan waxaa iga keenay waddan jecel dhul jecel hadal jecel luuqadeyda jecel calan jecel ayaa waxaasoo dhan iga keentay marka waxaan rajeynayaa Soomaaliya kolleeto marnaba lagama dhaadh haddii aniga aan aaminsan yahay telefoonkan waa black haddaan aaminsan yahay marnaba qof idhihi karo way caddahay mala alaa kulli xaal qofkii go-aan gaarana go-aankiisa lagama bedeli karo laakiinse bini aadamnimo hana lagu aqbalo umaan leeyahay aad iyo aad aad umahadsan tahay walaalayaal haddii aad daawatiin fadlan ishaa garaya si ay dad badan u gaarto ayna u gaarto magaalada dadka dowladda jooga siday u gaarto aad baa umahadsan bye